aan sameynay priority number 1 oo aan rabno dalkan in investmentiga uu galo waxa waaye waa wax soo saarka oo ay kow ka tahay beeraha marka waa fursad aad u fiican ayaa meel kastoon tagno waxaan iib geynaa waxa aan haysano oo beerahu ugu horeeyaan xooluhu ku xigaan kalluumaysiga wax soo saarkeena ayaan iib geynaa waxaanan hubaa inay imaan doonaan ganacsato waaweyn dawlado oo soo eegi doona dalkan u imaan doona sidii ay u maalgashan lahaayeen oo ay billions of dollars u gelin lahaayeen wax soo saarkeena maalin dhaweed waxaan joogay Ciraaq waxaan rajaynayaa bisha August waxaa imaan doona ganacsato aad iyo aad runtii ugu waaweyn dalkaas oo iyo wasaarado ay hogaaminayso wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo wasaarad iyo kalluumaysiga waxaynan u socdaan inay heshiisyo nagala galaan oo ay inaga qaataan beeraheena oo mooskii iyo cambihii iyo maxaan ku dhahaa simsintii iyo inaga wax soo saarkeeni quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda ayay rabaan inay ay sidaad ogtihiin liinteeni limbabeelada la oran jiray iyo mooskeenu dee adduunka waxay ka yihiin magac aad u sarreeyay ku leeyihin marka cid waliba waxay ku fakaraysaa inay Soomaaliya ka soo dhoofsato maxaan ku dhahaa mirahaas aadka u wanaagsan inay ka soo dhoofsato ayay ku fakarayaan marka waxay aad iyo aad u daneynayaan inay yimaadaan dalka wayna imanayaan sidoo kale xoolaha ay rabaan inay dhoofsadaan gaar ahaan looda iyo ari ayay rabaan inay ayaguna ay kimiyaad aad u badan oo tiro badan inay u baahan yihiin inay ka dhoofsadaan waxaa imaan doona dad dhakhaatiir ah khubaro oo eegi doona maxaan ku dhahaa dhinaca technically caafimaadka iyo wixii la xiriira ayagana eegi doona oo la socda haddii la yidhahdo imaan doonaan Egypt ayaa ayaguna aad ogtihiin inay diyaar yihiin oo rabaa inay kumanaan xoolaheena ah inay qaataan oo Suudaan ay ka qaadan jireen hadda ka hor Suudaanna markaa dadkan walaalahana Allah u fududeeyo ayagana jid xuno aynu soo marnay ayay qaadeen unfortunately taasi waxay keentay inay marka ay waayaan cunadii ay heli jireen inay qaaliyoobaan inuu qaali noqdo hilibkii Egypt uu qaali ka noqdo sidaa darteed waxay diyaar u yihiin ayaguna ay rabaan inay xoolaheena qaataan ayay iyaguna diyaar u yihiin marka dalkan waa loo soo socdaa in investment lagu sameeyaa la rabaa in xoolihiisa iyo beerihiisa iyo wax soo saarkiisa la sameeyaa la rabaa annagu ka xukuumad ahaan waxaan sameynay program insha Allah sanadkan dhamaadkiisa bilaaban doona laakiin hadda qorshihiisa si xoog u socdo oo la yiraahdo National Transformation Plan oo NTP kaas oo aan priority uga dhignay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga in la geliyo dalka Soomaaliya marka bankable projectiga aan sameynayno hadii la yiraahdo projectska number 1 wuxuu noqon doonaa wax soo saarka ayuu noqon doonaa insha Allah marka waxaan rabnaa in annaga laabis baan sameynay oo ay wada fadhiisan doonaan hal meel ay fadhin doonaan xukuumadii iyo private sectorki oo ay beeralaydu ku jiraan waxaan rabnaa inay halkaas ka soo dhalato fikrad isku darsi ah oo loo wada dhan yahay oo transform gareynaysa inaga wax soo saarkeena marka dad badan baan tababarnay waan private sectorka waan la xiriirnay waan wada shaqeynaa arrintaas si weyn u socota dalka marka waxaan wax soo saarkiisa iyo horumarintiisa dhaqaalaha waxaa lead ka ah
oo ka noqon doona private sector-ka ma aha in dawladdu xukuumaddu inay meel ay iska fadhiisato ayadu wax wadaysa ma aha dhaqaalaha waxaa haya private sector-ka haya dadka waxaa shaqaalaysiinaya private sector-ka shaqaalaysiinaya innaga kuweenna iyo kuwa kale oo dibadda inooga imaan doona intaba waxaan rajaynayaa in waddankan si weyn loo maalgashado ayaan rajaynayaa haddii la yidhahdo marka taasna waa socotaa si weyn baan iyadana u wadnaa haddii la yidhahdo priority-na saasay noogu tahay oo NTB-ga marka la fiiriyo private sector-keenu saasuu lead-ka u qaadan doonaa insha allah sidaad ogtihiin suuqyada caalamiga laftooda innaga wax soo saarkeena waa u furan yihiin weliba canshuur la-aan China ayaan maalin dhaweyd la heshiinay oo wix alla wixii aan soo saarno canshuur la-aan suuqaas weyn waa inoo furan yihiin u galayaan marka innaga inagu xidhan tahay waxaan soo saarnay iyo qualities waxaan soo saarno ayay inagu xidhan tahay laakiin waa suuq inoo furan waxaad ogtihiin East African Community aan ku biirnay oo ayaga laftoodu suuq weyn oo dad maxaan ku dhahaa nus billion ku dhow aan ku biirnay waxaa laynaga rabaa inaynu aan fursad u haysanaa inaan u dhoofino ayagana oo waxaan haysano aan geyno ayadana fursadaasi way inoo furan tahay waana fursad qaali ah oo muhiima waay intaasoo dhani waa fursado jira oo wax soo saarkeenna aan kor ugu qaadi karno haddii ilaahay yidhaahdo aanan niyeysanahay insha allah inaan kor u qaadno arrinteena aan kor ugu qaadno bandhigan oo hadda maanta wasaaraddu soo bandhigtay waxa uu yahay introduction iyo itijaah uu caddaynaya meesha ay xukuumaddu u socoto iyo meeshay dawladdu u socoto iyo sida loo qiimeynayo iyo siday priority ay noogu tahay arrinta wax soo saarka gaar ahaan beeraha marka in dhammaanteen aynu sidaas aynu u wada fakerno isku duubnaano kana shaqayno sidaynu u soo saaran wax soo saarkeena aynu xoojin lahayn ayaa loo baahan yahay arrintaasna waa arrin ka soo bilaabanaysa security-ga ilaa wada shaqaynta xukuumadda iyo private sector-ka iyo public sector-ku ay wada shaqaynayaan oo ay si dhow wada shaqaynayaan iyo soo dhaweynta investorska ka imaanaya dibadaha ka imanaya waxaan aad ugu adkaynayaa dadkeena ganacsatada iyo private sector-keenu inay xoog saaraan wax soo saarka oo ay hantidooda geliyaan wax soo saarka faa'iidadu meeshaas ay ugu jirtaa suuqaqna saan sheegnay waa buuxaan meel kastay ka buuxaan dawladda waxaa saaran inay abuurto suuqyadii waana ka shaqaynaynaa annaga ciddii qaadan lahaydna weydiiya laakiin soo saara marka in la soo saaro waa muhiim marka halkaasay faa'iidadu ka imanaysaa marka aynu dhammaanteen ka wada qaab qaadano wax soo saarkeenna aynuna maxaan ku dhahaa suudaantu markii ay qabsadeen askartu militarigu kuwan hadda maaha kuwii ka hore waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn maadaama ay maxaan ku dhahaa ay military ay dal ku qabsadeen marka way isku tashadeen marka waxay dhaheen naakulu mima nasrac waxaan cunaynaa waxaan soo saarnay annagu go-aankaasay gaadheen marka waxay gaadheen markii dambe dee inay dunida u dhoofiyaan oo wixii intuu faaid noqdo ka bata wixii inay noqoto meesha ugu badan ee wax laga soo dhoofsaday inay noqoto markay ay strategigaas qaateen oo ah waxaan soo saarnaan cunaynaa annagu ama hayso ama cunaqabatee ama waxaad adag ku taalla marka innagana aynu strategigaas wax la mid ah aynu qaadano oo aan iska dayno weliba hadda waxaad ogtihiin bad maaragtay dhakhaatiirtu wayba ka digayaan waxyaabaha kale waayahan dambe waad ogtihiin oo odayaasha iyo dadku waxay aad u cunaan cambuulay wax kale iga daa bariiska iga daa cambuulaystii baasta iga daa may cambuulo ma haysaa xaggaasaa berigan dambe loo batay marka waxaan rajaynayaa waa wax wanaagsan arrin wanaagsan waaye laakiin dee inta odayaasha miyayna ku ekaanina dhalinyarada iyo gabdhaha iyo hala sii gaadhsiyo iyagana xagga cambuulada ha u bataan cuntadaas soomaalida waxaa la yidhaahdaa cuntada
hal siin baynu karsanaa haddii aynu siyaabo kale u karkarin lahayn oo macaan lahayd way fiicnaan lahayd laakiin galley un haddii la kariyade oo ay maaragtay ay cambuuladu tii un ahaato anagu markaan yareerayn waan necbaan jirnay ma lama jeclayn marka dhalinyaradu ma jeclaan laakiin de galleyga waan si yani waa inaan farsamo keeno qurxiso macaanaysa waa inaynu digirta farsamo keenso macaanaysa waa inaynu helaan sameynaa oo wax kale ku sameynaa marka farsamooyinkaasi way naga maqan yihiin xagga cunto kariska waa inaga fiican yahay marka inaynu siyaabo kale u adeegsano dadka jeclaysiis oo macaanaysiista oo hoteelada waaweyn iyo maxaan ku dhahay maqaayadaha waaweyn iyo kulli maaragtay lagu kariyo oo cuntada ugu fiican ee ugu macaan oo ugu freshsan waaye laakiin waxay u baahan tahay in waxoogaa la suugeeyay u baahan tahay marka taasna inaynu si uun helo oo dadka farsamo yaqaanada ay noo sameeyaan baan u baahannahay aad iyo aad mahadsantihiin